golaha cusub ee deegaanka degmada Caynaba ayaa maanta yeeshay kalfadhiga ugu horeeyay golahaas yeesho kalfadhigan oo ka furmay hoolka shirarka dawladda hoose ee degmada Caynaba ayaa waxa shir gudoominayay gudoomiyaha cusub ee golaha deegaanka degmada Caynaba Xasan Yuusuf Aadan sidoo kale waxa goobjoog ka ahaa taliyaha qaybta booliska gobolka Saraar iyo taliyaha asluubta ee gobolka xogayaha dawladda hoose ee degmada Caynaba Umar Maxamuud Muuse ayaa ugu horreynba faahfaahin ka bixiyay qodobada iyo ajandaha golaha hor yaalla ay kaga doodi doonaan inta ajandahan socdo qodobada ajandaha ee hor yaalla golaha maanta laga doodayo waa dib u habeynta fayadhowrka magaalada iyo hagaajinta godadka qashinka waa lambar 1 lambar 2 kor u qaadida cashuuraha iyo dakhliga dawladda hoose lambar 3 banaynta wadooyinka magaalada Caynaba waa magaalo madaxdii ay xaruntu ka dhisnayd lambar 4 dayactirka wadada laamiga ah waa inuu kulliba dadku aad indhaha ugu hayaan fayska koobaad iyo ka labaad iyo ka saddexaad baa loo qaybiyay fayska koobaad 290 mitir baa ku qoran oo laga bilaabi doono hadii Ilaahay ka dhaw ceel weyni lambar 5 waa dhismaha guddi hoosaadyada golaha deegaanka oo sida xeerku tilmaamayo loo qayb doono sida xeerku inoo jahaynayo iyo darajadeena golaha loo qayb doono si shaqadoodu ugu fududaato lambar 6 jaangoynta gunnada golaha iyo guddida fulinta jaangoynta gunnada golaha iyo jaangoyn iyo fulinta oo xeerku iyadana tilmaamayo ayaa iyadana laga doodi doonaa meel la dhigi doonaa qodobka ugu dambeeya ee 7aad waxa weeyaan sameynta xeer hoosaadka golaha deegaanka ee degmada Caynaba gudoomiyaha cusub ee golaha deegaanka degmada Caynaba Xasan Yuusuf Aadan ayaa sheegay inta ajandaha kalfadhigani socdo inay kaga hadli doonaan qodobo ku taxalluqa horumarinta degmada Caynaba waxaan halkan ku furayaa kalfadhigii ugu horeeyay ee golaha deegaanka degmada Caynaba oo noo furmay maanta oo bishu tahay 12 bishii 7 2021 maalin Isniina waxaan kaga hadli doonaa wixii yacniga kalfadhigu ku saabsanaa oo ah wixii horumarina wixii xeer hoosaad iyo magaranaysaa golaha deegaanka ay ku dhaqmi lahaayeen iyo arrimaha nabadgelyada ayaan kaga hadli doonaa insha Allah maadaama kalfadhigii noogu horeeyay yahayna ilaa 3 casho inuu noogu soo gabagaboobo ayaan rajaynaynaa marka taliya qaybeed waxaan noo sharafay inaad nagala soo qayb gasho adiga iyo taliya asluubtu inaad nagala soo qayb gashaan iyadoo barasaabkii gobolku ku maqan yahay hawlo shaqo oo Hargeysa u aaday kalfadhiguna way noo furayeen ugu dambeyntiina taliyaha qaybta booliska gobolka Saraar gaashaanle sare Maxamuud Yuusuf Cige ayaa xubnaha golaha deegaanka degmada Caynaba u soo jeediyay inay isku duubnaadaan isla markaasina si wada jir u wajahaan hawlaha shaqo ee bulshada ay ka sugayso waa fadhigii ugu horeeyay ee golaha deegaanku u qabsado golaha deegaanka Caynaba waan soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa waa bilowgii wax qabadkiina wax badan ayay bulshadu idinka sugaysaa ha noqoto xagga wax qabadka xagga nabadgelyada xagga nadaafadda xagga dhaqaalaha aad iyo aad ayay bulshadu idin sugaysaa waxaan idinku ducaynayaa in Ilaahay hawsha idin la qabto aad noqotaan golo deegaan oo isku duuban jaamac boodacde warbaahinta qaranka Soomaaliland Caynaba